kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada channelka marqaati TV ninkii in la hadlayna waa bidhaamiye been mashaaki baarqa banaankiisa digay galabka waxaan yahay barnaamij aad u xiiso badan oo waana sheeko nooga imaatay mid ka mid ah daawadayaasha marqaati TV oo nala wadaagay waxaan idin hayaa sir kale ah hablaha Soomaaliyeed ee ku sugan qaaradan Yurub gaar ahaan kuwada single maadarada ayaa u arkay dawo ahaan inay isku daweeyaan ragga ku sugan qaaradda Afrika haddaba dawada maxay tahay qaab nooca ay inoo isticmaalayaan ayaa rabaa inaan idin sheego waxay tahay hablaha Soomaaliyeed ee single maadarada ama garoobada ee ku sugan qaaradan Yurub waxa macquul ah inay haystaan ilmo kala duwan ama ay haystaan ilmo aabood ay mar hore kala tageen sidaana iyagu kaligood ugu dhibaatoodeen kuna mashquuleen waxbaristooda iyo waliba korintooda laakiin si ay u nastaan stresskii badnaa ee ka buuxsamay waxay dhaqaatiirtu sheegeen in caafimaadkooda uu ku jiro inay stresskaas iska bixiyaan nolol iyo hawo fresh ay helaan sida waxayna iyaguna markaasi ay u qaateen inay u baahan yihiin in ay guursadaan nin cusub oo stresskaas ka saari karo ninkaasna uu yahay mid jooga qaaradda Afrika sida ayayna ku talagaleen badankood inay guur fara badan ay ku soo sameeyaan qaaradda Afrika nimanka joogana soo guursadaan soona shukaansadaan haddaba dhibaatada ugu badan ee ka dhalatay ayaa waxaa ka mid ah in rag Soomaaliyeed qaarkood ay waqti badan ay dhumiyeen wiil Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi caasimadda Kenya ayaa sheekadan ila wadaagay wuxuuna diiday magaciisa iyo magaca gabadhaba inuu ii sheego laakiin wuxuu iga waramay qisadiisa oo dhacday wuxuu yiri waxaan bartay gabar Soomaaliyeed aan isku baranay Nairobi iyadoo xilligaas ka imaatay qaaradan Yurub wuxuu ii sheegay inay gabadhu maalmo yar isbuuc gudaheed ay ku heshiiyeen wax walba oo ah inay isguursadaan noloshiina ay isla fahmeen mustaqbalka waxay sameyn lahaayeen ay ka wada sheekaysteen wuxuu ii sheegay muddo 5 sano markaa isqabno ayuu sheegay in gabadhii ay wax isbedel aysan sameynaynin sidii ay u imaataa sidii ayayna u baxdaa laakiin isagu muhiimadiisu waxay inay gabadhu caruur u dhasho uur u qaado sidaana ay ugu fududaato isaga laftirkiisu maadaama uu boofis hayo inuu qurbaha tago oo sida xaaskiisa ilmihiisa uu kula noolaado laakiin sheekadu taa way ka duwan tahay oo isaga kiniini ahaan bis ayaaba loo isticmaali jiray oo ah in stresska la isaga baabiyo sanadkii mar ay u imaan jirtay xilliga iskuulada ay ilmaha fasax u yihiin ayayba daawo ahaan u soo caadi jirtay laakiin isagu waa qof mustaqbal rabay doonayana inuu mataqaana qurbaha aado waxaa dhacday inuu muddo 3 sano camal markay isqabaan oo afartiiba loo sii socdo inuu u wareegsaday dalka Uganda caasimadiisa Kampala wuxuu sheegay inuu halkaas ay isku barteen gabar ay qaraabo yihiin isku xaafad yihiin ayay isku barteen sheekadii ayayna uga sheekaysay waxaanu sheegtay xaaskiisu inay 6 caruur ay leedahay 6daas caruurtaana ay dhibaato fara badan ay kala kulantay waxa kale oo sheegtay inay islaantaas oo ibisir gabadhaas bay isir rabinba inay mar dambe inay dhasho waayo inta joogta ayaba ku mashquulsan tahay dhibkeeda markii Afrika caadiisana waxay u soo aadaayeen loo raaciyay inay hawo soo qaadato ee maahan inay culays kale ay ka soo qaado Afrika wiilkii ayuu warsan ay sanadkii afraad u imaatay waxaanu weydiiyay sababtay uur qaadi laadahay maadaama ay ku dhawaad 4 sano isqabaan laakiin waxa uu sheegtay sanadkii dhawaay inay uur qaaday laakiin jaranjarada gurigooda ay ka soo dhacday sidaasna ay ku halaabeen waxaanu sheegtay inuu isdejiyo niyadda uu khayr u sheego uurna ay qaadi doonto oolaad asaga u agna ay dhali doonto waa sida iyada u sheegtay laakiin nasiib daro sanadkii afraad waa ay laabatay taana ma aysan dhicinin laakiin xilligii sanadkii shanaad uu suganayay ayuu u sheegay in sirteeda uu hayo sida marka uu sheegana waxay u sheegtay inay markaan ay doonayaan inay kala tagaan runta ay u sheegtay waxay ku tiri walaalkayo 6 ayaa ii joogtay Sweden iyaga ayaana dhibaato kala kulmaa mana doonayo mid 7aad iyo mid 8aad inaan ku darsado aniga ayaa teedayso haddii aan saan ku wada joogi karno waa inaan ku wada joognaa haddii kalena مع سلامة يكتري ويلكي أيانا قان صدي إني سيدا كوكلا تجان حدبا شكلها وحن كده حلي كرنا واحد تاي هبلاي أديكو عافمات كجرادينيس إن ولالك عذر كرديد وديباتو متى كلا الشلة وحن كده ده واحد وركبنا الصومالي ديانا نولش هذا مقتل الجلين لكن إن قبل الصومالي يجون نرجع الصومالي قوة المستقبل كلها إن مقتل جليان يدون واشيك كلوات وحنو بدن لكن رجعنا الصومالي واحد يشجع كارم كو أفريقيا جوجو ولالك يوروب هدايربتين calafka garto Allah ku darko marka labaad ha ku raadinin in kiniin aan lagu isticmaalo oo sidaad Yurub ku imaato laakiin isku day inaad xaniyaaga fuusto badba soo martid
laakiin mar walba walaalkeeyo waqtigaagu waa muhiim adiga ayuu muhiim ku yahay wax badan ayaa shaqadaasna ku qabsan kartay walaalkay waa kaaga taxsiinaya sheekadaas na uu ii sheegay waan ka idmaday inaan bulshada la wadaago si dhalinyaro fara badan iyaguba qurbaha ku sugan Afrika gaar ahaan Nairobi in sida aan waqtiga looga dhuminin marka hableena single maadarada ay qurbaha ku suganoo walaalayaalo wiilasha islaameed daawahan oo isticmaalinin oo waqtigooda qaaliga ka dhuminin inta ku heli kartiin kuwa iyaga laftirkooda stress ka buuxsamay stress lagu dhaftay stress eber ka soo bixi karto war kuwan ku mashquul kuwaas mustaqbal iyo waxay leeyihiin nolol ay leeyihiin galab wanaagsan ayaad leeyahay meel walba joogtaan waxaan idinka codsanayaa hadduu muuqaalkan idin xiise geliyay inaad subscribe iyo like iyo commentiga ku dadashaan si aan u helno dhiirigelin in aan sirtan ka badannahay saa idinkugu soo helo waa barnaamijka barqa banaankiisa dowladda dhahaya galab wanaagsan